السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادة قيسي رحمة channel. أصحابتنا عصب سر دوادة أصحابتك كسر رسينا عادي بعض ما سنتهين جودان عدو البوصوب وقتو channel كقيسي رحمة والعليال عادي أدباردين كم هذا علينا. داوديال مانتو حربانا ندلوا داغو أهورو كينياتا ودقنين علوس ودريدالك الصوماليا وليبا قيبتا قدام بيسو برنامج كان وحان دلوا داغي دونا xildhibaanada Soomaaliyeed oo ka tirsan dawladda Kenya oo booqday Soomaaliya la kulmay madaxweyne Farmaajo kadib markay ka soo laabteen dhibaato weyn kula kulmeen dawladda Kenya. Arrintaasi waxaa si weyn u garab istaagay xildhibaanada Faarax Macallin geesiga Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad u difaacay asagana doodiisa ayaan idin heynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. haddaba daawadayaal haddii aan barnaamijka u guda galo dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ayaa xaaladooda meel xun mareysa kadib markii ay dawladda Soomaaliya ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed beled xaawo ka saareen ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa mandheera galay oo halkaasi ay ku dhumaaleysanayeen kadib doodo halkaas ay ka timid dagaalkaasi oo runtii saameeyay bulshaweynta Soomaaliyeed oo ku dhaqan beled xaawo iyo mandheera. haddaba daawadayaal digniin madaxweynaha dalka Kenya u soo diray Soomaaliya ama gaar ahaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan idin hayaa ku soo dhawaada daawasho wacan. It's been a consistent spiral down for the two neighbors since the maritime border dispute found its way to the International Court of Justice. Tension that had seen Kenya recall her ambassador to Somalia and expel Somalia's envoy in Nairobi. Between Somali National Army forces and those from the Jubaland state, the federal government accused Kenya of sheltering a fugitive minister of Jubaland. President Kenyatta now accusing the Somali forces of violating Kenya's territorial integrity and sovereignty, saying that the attack was unwarranted and meant to provoke Kenya. The president saying Kenya acted with total restraint. Somalia's envoy to the UN, Abukar Osman, is said to have accused Kenya of meddling into Somalia's sovereignty. The National Security Council saying that such are part of a persistent pattern of ill intent to use Kenya as a scapegoat to justify internal challenges. Kenyatta saying the country will not be used as such. The president expressing fatigue in the statement where he calls for Somali security forces at both federal and state levels to strive to defeat Al-Shabaab terrorists, to stabilize the country and ultimately take over national security responsibilities from AMISOM. To do so, Kenyatta warns the President Mohamed Farmajo's government to urgently and exhaustively seek political consensus internally towards a path of peace which the President says cannot be achieved through the barrel of a gun. The terror threat in Somalia and Kenya's proximity through the border along the northeastern region remains a thorn for Kenya. With the tension between Nairobi and Mogadishu, Kenyatta now wants the federal government to desist from the unwarranted provocations, focus on managing its internal affairs, defeating terrorism, advancing the cause of peace, security, and stability in the region. madaxweynaha dalka Kenya ayaa Soomaaliya ku yiri haddii aad isdagaalaysiin dalkiina gudihiisa isku dagaala al-shabaab la dagaalama al-shabaab iska dhiciya dalka al-shabaab dalkiina ka saara ciidanka African Union mas'uuliyadda kala wareega dalkiina difaacda ayuu ku yiri hadalladaas oo runtii hadalla bahdil ah dhacdadaasi kadib daawadayaal waxaa dhacay 11 xildhibaano Soomaaliyeed oo ka tirsan dawladda Kenya ayaa Soomaaliya aaday lana kulmay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayagoo markaasi xal u raadinayo dhibaatooyinka ka dhex taagan Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. kulankooda kadib markay madaxweynaha la kulmeen wada hadal la yeeshteen kadib ayay Kenya ku soo laabteen. Kenya markay ku soo laabteen dhibaato weyn ayay kula kulmeen dawladda Kenya. dawladda Kenya ayaa ku tilmaantay mas'uuliyiintaasi ama xildhibaanadaasi si sharci darro ah inay dalka ka baxeen lana kulmeen madaxweynaha wadanka kale. arrintaasi ayaa si weyn loo hadalhayaa dalka Kenya shacab iyo siyaasiyiinba. waxaan idinku soo dhaweynayaa daawadayaal dood kulul oo dhaxmartay mas'uuliyiinta
ka tirsanaan jiray xildhibaanada dalka Kenya. xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Faarax Macalin oo si weyn loo yaqaano ayaa ka mid ah oo runtii si weyn u difaacay mas'uuliyiinta booqday Soomaaliya ama xildhibaanada la kulmay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba daawadayaal ku soo dhawaada doodaasi daawasho wacan. And how the leaders had to be questioned for a short while at the airport. And would you know what the agenda was for their mission to Mogadishu? Well, there's a lot of hype and sensationalization of too much ado about something that's very basic. Basic. They met the president of Somalia. Just relax. I'm explaining it, so you wait until I finish my explanation. All right, go ahead. There's nothing wrong with anybody meeting any president. Every politician here meets everybody else, everywhere else in the world. There's nobody who seeks permission from somebody because he's going to meet another president. I've met more than 10 presidents myself. I don't have to seek anybody's permission. These are the old communist socialist kind of attitude when for you to do something, when the parliament used to be, before Parliament got its independence, it used to come under the office of the president, which in itself was unconstitutional because the constitution is clear on the separation of power. You have to have the three arms, which are independent of one another, but of course interdependent. So there is nothing wrong with anybody. It's a constitutional right. You can go anywhere. The fact that they were a big number, they went in there, is also not clandestine. When you have 11 members of Parliament going together and taking a flight together, that's not clandestine. They're not hiding anything. They're telling you, come and see what you're going to do. What I also know is that Uhuru, in the meeting they had last time, told them, go back and come up with a plan on how we can get rid of this insecurity in the region, which is quite an unusual thing. Usual in the sense that you can come up with a plan and take it to the president for the government to implement. But to expect the leaders and local people to go and secure security is tantamount to a crime in CBD, and then you say the businessmen in here must secure the security of this place. It's a bit of a crap. It doesn't make sense. You see, the first cardinal sanctified role of a government is to protect the life and the property of his own citizens. Right. I want you to understand these things in a very basic format. And first of all, you must cleanse your mind from all Kenyans. I'm talking about the non-Somali Kenyans, from the fact that there are Kenyans who are Somalis. These are not people who came in like Indians and Europeans in here. These are people whose region was lumped as part of Kenya by the British. The same way the Luya are divided, the same way the Turkana are divided, the same way the Luas are divided, the same way the Maasais are divided. So for the first time, it's important, including leaders. You know, I was in Parliament, in the 7th Parliament, and as a leader, an MP who I think has since deceased, the late Kubo, Mcharo Kubo, who was a member of Parliament. And he told me one day, but yeah, that was an education. He's a very well-educated guy who got his degree those early days. He said, but you have to be grateful to this country. You know, you're a refugee and we even made you a member of Parliament. Really? You know? So the presumption that these people are coming from somewhere else and that they don't have the same rights a Luo or a Kikuyu has is one thing people need to get their minds off. You get my point? To say them and us, as if there is a Somali which is a different thing from the rest of the country. No. We might look different, and everybody looks different from the other. A Luo looks different from a Kamba and a Kikuyu and everybody else. Maybe the one thing you all share is that our hair is a bit softer than the rest of you, and that's why you talk of Nyele Laini, you know what I mean? Which is natural. I mean, there's nothing you can do about it. We didn't choose to be that. Faarax Macalin ما شاء الله si fiican ayuu ka jawaabay iyo mas'uuliyiinta kale oo halkaasi ka hadashay sida dooda lagu sheegay saan anaga aaminsanahay waa dadkeena dalkay ku nool yihiinna waa dalkeena oo runtii guumeystuhu kala qaybiyay oo Kenya maaragtay si xaq darro ama si sharci darro ku haysato sida darteed dadkaasi Soomaaliya waa dalkooda madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynahooda way la kulmi karaan مرنا مقبو أني إني عندنا فسح وجبهن يهين إني دلكودا بوغدان دتكودا بوغدان داود يا المسؤولين تاسي قارة يا كهالله أن تاسي جواب كبحيي هذا بجواب تودا كسر نوادا داو شوعان. The knowledge of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta
who has challenged the leadership to be forthright in their fight against Al-Shabaab. We thought it wise to engage our neighboring country, Somalia, so that we can be able to attend to the issues of insecurity which is affecting our common boundary. And I want to make it extremely clear that we met with only one person, and that is the President of the Federal Government of Somalia, in person, because we thought we will upscale this issue to the highest level. Why we did that is because Al-Shabaab's foundation and home is in Somalia. They are the ones who have made us suffer this magnitude. We also delivered the message that he needs to de-escalate the issue of having rhetoric letters accusing Kenya left, center, and right, and told him in person that we plead with you, please stop those things. We are not under MFA, but issues of parliamentary is a parliamentary issue. We have parliamentary privileges, we'll sort it out. But not it's a process. But us going or whatever, we went there in our own capacity. We don't report to MFA. Thank you. ugu dambeyn mas'uuliyiinta aragtidooda ka dhiibatay waxaa ka mid ah Bilow Kerow oo barihiisa bulshada gaar ahaan Twitter ku soo qoray aragtidiisa ayaan idin la wadaagaynaa insha Allah taala wuxuu yiri kuwa ku mashquulsan shacabka North Easternka ama Soomaalida Kenya waxaanu sheegaynaa ayuu yiri cidna marti uma nihin Kenya gudaheeda Soomaaliyana waan booqan karaa iyo wadamada kale sida dadka kale booqdaan runtii halkan waxaa ka muuqato in Soomaalida ilgaar lagu hayo maadaama dalkooda iyo dadkooda la haysto ma la rabo inay isku socdaan dadkan mas'uuliyiinta say rabaan u galaan dalka Soomaaliya oo wada hadal la yeeshaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed taas oo laga cabsi qabo inuu xiriir wanaagsan ka dhaxmaro oo hadhowna kacdoon bilaabdo oo halkaasi dhibaato ka soo gaarto Kenya ayay ka cabsanaysaa dhinaca kale maadaama Soomaaliya dacweysay Kenya markay Kenya ku qabsatay badda Soomaaliya ama sheegatay badda Soomaaliya ayay xaaladdu sii adkaatay Kenya waxay filanaysaa ama ka sugaysaa Soomaaliya maadaama aan idin caawinay maadaama aan qaxootigiina dejinay maadaama aan ciidan idin soo diray Al-Shabaab la dagaalamayo wax walbo aan idin ka qaadano aan idin ku sameeyno inaad ku samirtiin taas ayay Soomaaliya ka filanaysaa Soomaaliyana arintaasi runtii murna waxay muujisay inaysan yeeleenin dhulka Soomaaliyeed hataa haato tilaabo in laga tanaasuli doonin cidna loo ogolaan doonin inay sheegato ayay Soomaaliya muujisay maxkamadda caalamiga geesay dacwadaasi taas ayaa sababtay Kenya in Soomaaliya ku tilmaameen qof daciif ah oo la kaalmeenayo oo asagana dhabarka ka toogto sidoo kale dadka Soomaaliyeed oo degan dalka Kenya sheeganayso iyo kuwa qaxootigaba Kenya waxay la dhaqmayaan sida maaragtay dad qaxooti ah oo aan dalka xuquuq ku lahayn oo dalka soo galooti ah ayay la dhaqmaan taasi waxaad ka maqasheen Farax Macallin asagoo sheegayo mas'uul sare oo baarlamaanka Kenya ku jiro baarlamaanka Kenya gudaheeda hadalku kula hadlay ayaa ku cadeyn karto in Soomaalida loo arko inay yihiin soo galootiga ay marti ku yihiin dhulka degan yihiin dhulka ay kala yihiin daawadayaal guud ahaan barnaamijka ku saabsan xaaladda dalka Kenya iyo Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo booqday Soomaaliya la kulmay madaxweyne Farmaajo dhibaatooyinka ka soo gaaray intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan hadaad ku cusubtahay channelka Qays iyo Raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo saad u hesho notification tan iyo kulantideena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh